dhammaan soo dhawaada waa idin salaamay waa casharadeenii Microsoft Excel waa ogtihiin Microsoft Excel in maaragtay qof walba uu access u heli karo device kasta aa haysatid ama mobile ha noqdo ama desktop ama laptop ama iPad in aad ku isticmaali kartid marka haddii aad baratid small businessna aad leedahay ama waxyaalo kaleeto aa maamushid aada maaragtay waxyaalo badan wuu qabsan kartaa maanta waxaa rabaa inaad tuso scroll bar in halkaas la gashan karo hadhowtina lambaradan lagu gudgudin karo iyo in maaragtay break even markii aa productiyo ay ku cost gareeyaan hadda coffee makerkan halkii coffee maker costigiisu waa 35 wuxuuna howlgalayaa 25 cups marka costiga markaa hal xaba sameeyo waxaan ka bilaabayaa haddaan waxba gadin anaaba faa'iido kuma hayo 35 anaa ku jiro oo maaragtay down marka break even waxaa la dhahaa markii 35 kaas kaa galay aad dib u soo ceshatid see loo sameeyaa okay daaraan tegaynaa halkan what if analysis waa waxyaalaha maaragtay lagu analyze gareeyo aan tegaynaa goalsig waana aragteen wax badan oo goalsig isticmaalaya lambarkeerta inaad maaragtay value ahashid 35 aan rabaa 35 kaasaan gashanaya xagee bedelaysaa tirada koobabka imise koobaan gadi karaa si aan 35 daalkaas aan ku gaaro okay aan leenahay lambarkaan nasi wuxuu dhahaa 12 koob mujida the number of cups sold 12 koob markaan galno 35 ka waa noo soo noqotay laakiin weli faa'iido mahayno waa isku go'day 0 annagana waxba nagama maqna waxna faa'iida ah oo noo dul saarana ma jirto marka imagine marka tusaale ahaan haddii aad isticmaal any kind of product aad gedid aad break evenkeeda aad ku samayn kartaa imise shay aan u baahanahay aad su-aasha isweydiinaysid because that's what you su-aasha aad raadinaysid jawaabteeda imise aad u baahanahay inaan gado si lacagtii gashay costigii aan dib ugu soo celiyo wixii ka dambeeya waa faa'iido waxaa kaloo samayn karnaa meeshaan intii maaragtay aan wax ku qorqori lahayn in aan saaran karno scroll bar oo aan ka gedgedino okay halkaan aan tegaynaa developerkaas aan tegaynaa insert aan tegaynaa kaas aan select garaysanaynaa meeshii aan kor imaanaynaa waa kor saaraynaa kor u habee sifiican u habee waa ka scroll barkii laakiin waa inaan ku xirno waa inaan selkii aan ku xirno waxaan samaynaa right click aan leenahay format control kan tegaynaa boxkaana noo soo baxay su'aalahan ka jawaabna ma current value waa 0 minimum value ugu yar aan gadno waa hadaan waxba gadin 0 aan joognaa maximum value aan gadno waa 125 caps aan gadnaa and incremental change ga hal aan ka dhigaynaa laakiin page change waxaan ka dhigaynaa 5 and cell kan ku xireynaa marka cell kan ku xireynaa kana rabnaa inuu ku xirmo because tirada kaasay ku jirtaa isgidgidinaysa okay aan okay hadda marka halkaan aan ka isticmaala markaan koob gado click aan siinaya click 2 koob 3 koob 4 koob 5 koob mafaan markii aan 25 gado marka halkaan aan ka dheerayno 25 markii aan gado wujida 25 coffee makerka 25 cups whole gram 25 markaan gado cups waxaan sameeyey totalka aan sameeyey waxa waaye $75 waxaa ka jirtaa $35 oo costigii faa'iido waxaan sameynay oo $40 wajida 25 cups markaan gado 75 waaye totalka 75 marka waxaa ka jiraynaa costiga 75 minus 35 40 faa'iidaan sameynay marka akhyaarta journal ku xiran xiisaysa excelka rabta inay wax ku qabsato ku adeegato waa tool lagu adeegto oo haddana at the same time access u lahaan kara ama free ku heli kartid device-yadan gacmahan ku wada wadanaa mugtahay intaa kusoo shubatid wax walbeeto ku samaysanaysid waxaa intusa maanta sida loo helo break evenka iyo in scroll bar lagu darsan karo workbook waxaa inoo ballan cashar kale oo xiiso leh iyo channelkan sidaas nabadgelyo